العلس عيار لا iska dhaliye 6 ilaa 7 ayuu isbuucan martigeliye garoonka aan kor ka dadneen ee Runirgood Stadium kooxda Runirgood oo mininkeeda lama filaan ugu martigelisay kooxda Shabaab ayaa qaab ciyaareed difaaca ciyaartay taas oo keentay in qaybtii hore ciyaarta wax ka yar 8 minute shabaqooda la soo taabtay 6 jeer xil xidigaha Amisom iska diiday in bedel ay ku soo galaan ciyaartan qaybtii dambe ee ciyaarta ayaana laacibin ka tirsan kooxda Madiina ee gobolka Banaadir degdeg u soo galeen garoonka iyagoo marka laga reebo laba xidig intii kala banaanka u saaray in ka yar 10 minute ayayna ku qaadatay in ay barbareeyaan kooxda Shabaab 90 daqiiqo ee ciyaarta ayuuna haliyeego cusub ee Runirgood Cabduqaadir Qoone dhaliyay goolkii guusha ee uu ku soo caan baxay taasoo natiijada ciyaarta ka dhigtay 7-6 oo Shabaabka looga adkaaday naadiga Shabaab ayaana laga yaabaa in dacwad ku aadan bedelka 9 ciyaaryahan ah ay u gudbiyaan FIFA walow Shabaabku moog yihiin in kulamada saaxiibtinimo la bedelan karo dhammaan ciyaartooyda garoonka ku jirta dumata xulka England oo wata qalab isboortis oo caalami ah ayaa isbuucii la soo dhaafay soo caga dhigtay garoonka Aadan Cadde Stadium oo ay ku ciyaarto kooxda gobolka Banaadir laacibintan hubeysan ayaana marna diyaar u ahayn ka qayb qaadashada kulamada darbiga ee u dhaxeeya kooxaha isu haysta hoggaanka horyaalka dalka iyadoo taas bedelkeedana xerada xalana tababar ku siin doonaan daayirta kooxda federaalka si guul ugu soo hayaan kulamada ay wajahayaan kooxda tababarahooda isqoriye ee Shabaab taariikh ahaan xulka England kuma guul dareysan carada Soomaaliya tan iyo 1899 oo haatan laga joogo 117 sano markaas oo kooxda daraawiishtu afku ciidu dareen xulkii England oo xilligaas leelinaya tababar Kofi waxaana dhowr kulan 3 leeg Ali Qarjab ayaana maanta soo xaadirin xerada tababarka ee Garowe kadib dhaawac bowdada oo ka soo gaaray kulan rabshado wata oo u dhaxeeya isla ciyaartooy ka wada tirsan kooxda amniga Puntland taasoo ka dhacday garoonka caalamiga ee magaalada Boosaaso dhaawaca xidigan laf dhabarka u ah kooxda Cabdiwali Gaas ayaana shalayta loo duuliyay dalka Djibouti si soo kabsashada fardaha loogu sameeyo laacibkan ayaana laga yaabaa inuu seego kulamada kooxdiisu suurtagal tahay inay wajahaan Galmudug Somaliland iyo Shabaab laakiin dhakhtarka xidigan ayaa u ogolaaday in gudaha xarunta caafimaadka uu kaga soo muuqan karo kulamada dacaayada afka ee kooxdiisa bil walba dhaxmarta kooxda federaalka kooxda federaalka Soomaaliya ayaa jabisay isbuucan rikoodka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda markii adduun gaaraya 70 milyan oo lacagta shilin Soomaaliga ku soo xeragasteen kabtankii kooxdii garsoorka iyo xulka qaranka Soomaaliland Ibrahim Idla Saleeman si uu buuxiyo boosku Faruji wayaaragii hore reer Soomaaliland ilka xanafkaas oo laga soo uriyay darajadii kabtanimo ee kooxda maxkamadda isboortiska qaranka xidigan Ibrahim Saleeman ayaana iskiis u kansalay heshiis waqti dheer uu kula jiray xulka Soomaaliland isagoona u sheegay in daweyn uu aadi doono magaalada Cape Town si uu soo xaliyo dhibaato dhaawac oo laacibkan ka haysata anqowga walow taasi bedelkeedu uu toos uga soo degtay garoonka Aadan Cadde jaridda Hargeysa Times ayaana tabaaxaysa in xidigan horaantii match heshiis afka la gaaray kooxda federaalka oo balan qaaday mushaar laba jibaar ah kaas oo laacibka baxarka galay ku kaliftay heshiiskan waalida ah soo xirigelinta xidigan iska iloowe ixtiraafka ayaana kooxda federaalka u sahli karta in dalabyo cusub ay gudbiyaan laacibin hor leh taas oo dhalin karta in labada naadi ee xifaalka baan ka dhaxeeyo murankoodu gaaro guddiga ciyaaraha caalamiga ee FIFA taageerayaasha isboortiska Soomaalida ayaa sawirro maadeysi ah ka sameeyay xidigta Asma Love taasoo kumanaan taageerayaal ah hortooda si qaldan ugu dabaaldegta xalayto xiriirka FIFA ayaana hore u mamnuucay in ciyaartooydu dabaaldeg dartiis u siiban karaan maaliyadda taasoo laacibku ku muteysan karo calaamada hurdiga ama xitaa casaanka xidigtan kobaca fankeeda aadka u liito ayaana taageerayaasha horteeda ku siibatay maaliyadda xishoodka iyadoona ganax ku muteysan karta qoraaladii ay soo dhigtay barteeda Facebook walow ay ka saarto markii dambe xidigtan ayaana sidoo kale sheegtay fanaaniinta Xamdi Queen iyo Yurub Kenya ay ku taageersan yihiin dabaaldega naasiga walow warbaahinteena aysan u haynin wax cadeema ah oo ku baahin karna haatan wargeysada isboortiska Daily ayaa goor hore oo Jimciya si rasmi u xaqiijiyay inuu dhaqan galay heshiiskii Farxiyo Faski iyo Bashiir Hanuuniye taasoo meesha ka saaraysa madmadowgii warbaahinta uga jiray suurtagalnimada heshiiskaas xidiga Bashiir Hanuuniye ayaana saxiixay heshiis 3 sano ah oo isbuuci uu qaadan doono adduunna 200 oo euro oo ay u dheer tahay xayisiintu u baahiyo flyerka xidigtan heerka caalami ah isagoona sidoo kale kasban kara lacago abaalmarin ah haddii laacibkan sanadkiisii ugu horeeyay uu ku guuleysto horyaal ama xitaa FA Cup-ka sidoo kale heshiiska ayayna ka marneen in laacibkan uu warbaahinta live uga xaqiijiyay inuu burburiyay heshiiskii uu kula jiray xidigtiisii ugu dambeysay taas uu kula guuleystay hal Champions League iyo horyaal taageerayaasha reer Daily ayaana fariimo bogaadin isugu dirayay barahooda u qaaska ee bulshada sida WhatsApp iyo Facebook iyagoona la dhacsan in xidigu guul u soo hoyay kooxda mar kale
iska garab. laacibkii hore ee kooxda BBC da Macalimi ayaa ku dhawaaqay inuu isu soo sharaxayo hoggaanka sportiska ee Nusaj taasoo muddo ahayd koox maamulkeedu hareeyay khilaaf sportis. xidigaha Umar Faaruq iyo Pakistan ayaa dhowr jeer oo hore gudaha garoonka isugu gacan qaaday khilaaf ka dhashay kabtanimada kooxdan. yeelkeeda xidigaha kooxda saxaafadda ayaa dhankooda kala saari karin cidda leh mudnaanta koowaad ee Nusaj taasoo sii kordhinaysa xiisaha tartankan. shaqada ugu badan ee kooxdan ayaa kaliya inay cambaareeyaan laacibkii ka tirsan kooxda saxaafadda ay shabaabku ka diraan horyaalka dunida iyo kii faawulkiisa ku muteysta xabsi sportis. xidigan Macalimi oo dhawaan ka soo kabsaday dhaawaca wajiga oo ka soo gaaray bandhig shabaabku ka sameeyeen gudaha garoonka Lido ayaana isha ku haya jagada si uu helo mushaar uu kaga kaaftoomi karo kii BBC. Kaylo wariyaashii ku xaweebsan jiray soo gudbinta ciyaaraha sida James Berry oo British ah, Russell Buffalino oo Italy ah iyo Sam Shawali oo reer Tunisia haatan ay la daawo Maxamed Qadar oo dalsan raadiyo ka tabinaya guushii Leicester ee horyaalka. ayaa caawiye Leicester City inay horyaalka qaado. Riyadu arugawday Leicester City. wariyahan sports ayaana dhowta isaga jaray mushaar aan ka badnayn $50 isagoona ciyaar walba ku tabiyo oo hinduco iyo qeeladaan ku cusub sportiska. dariska idaacadda kaagna ayaana seexan habeenkii ay jirto ciyaar xiiso leh. dadka qaar ayaana la fajacshan qaabkan ka baxsan anshaxa sportiska walow 31 jirkan isagu soo haysto mid raacaya wadada kaliya ee uu magac kaga sameeysan karo taageerayaasha sportiska. khubrada sportiska ayaana isweydiinaya haddii wariyahan Ingiriiska ku dhiban loo 3 jibaaro mushaarkiisa in qeyladiisa uu ku weyn karo horyaalka quruxda badan ee dunida. markana baafinta waxaa la baafinayaa madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Riyaale Kaahin markii cid ugu wardambeysana wuxuu sharaf ku wareejiyay kursiga oo xitaa haddii uu didi lahaa xoog looga dejin lahaa. haddaba cid allaale ciddii aragtay xidigaasi kooxdiisu danaynaysa in horyaal cusub furatana waxaa laga codsanayaa in hurdada ay ka toosin karaan laacibkan haddii uu ku qarbo in gobolka Awdal ka go'ay Somaliland inteeda kale ama waxaad uga yeeri kartaan xulka qaranka Soomaaliya isaga midnimo qaran raadi doone. sidoo kalena waxaa la baafinayaa xidiga kooxda fanka xoog uga mid noqday ee Mustafa Rasta markii cid ugu wardambeysana wuxuu daawada jirka kobciso u isticmaalayay dhowr kulan faneed ah. haddaba cid alaalay cid aragtay xidigaas jiimka iyo fanka isaga qaldan yihiin waxaa laga codsanayaa inay ku wargeliyaan in ciyaarta fanka aan laga dheelin murqaha iyo xabadka. haddii uusan kari karina waxaad ku casuumi kartaa bandhigyada Birima ama Kuwintaasha isaga baasaska nikada boos ka qaadan doona. sidoo kalena waxaa la baafinayaa agaasimaha radio Dalsan Xasan Cali Geesay markii cid ugu wardambeysana wuxuu taageerayaashiisa ku dhageysanaya telefoonka sida agaasima VOA ama BBC da oo kala ah. haddaba cid allaali ciddii aragtay xidigaasi kulaalka xamar la daala dhacayna waxaa laga codsanayaa inay ku wargeliyaan in mushaarka Cabdiraxmaan Yabarow iyo Farxaan Jimcaale uu u shan jibaar markiisa Dalsan teleefoonadan ay ka jawaabaan ama waxaad ka falaashi kartaa number UK ama USA ah isaga durba kugu soo celin doone. waxaa kaloo la baafinayaa wariyihii BBC da Xasan Bariise markii cid ugu wardambeysana waxaa laga xiriirsaday booskiisii joogtada. haddaba cid alaali cid aragtay xidigaasi codkiisa u la yaqaan waxaa laga codsanayaa in shaqo ay ugu qalqaaliyaan TV-da Universal ama Home Cable si muuqiisa loo helo ama waxaad ku casuumi kartaan arooska Bashiir Haruuniye iyo Fiska.